ciidamada huwanta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamulka Galmudug way weheliyeen xooga deegaanka ayaa maanta qarka u saaran in la wareegaan gacan ku haynta degmada istiraatiijiga ah ee Ceelbuur taasi oo ku jirta gacanta kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ciidanka oo saaka ka ruqaansaday fariisimihii xalay ay ku hideen oo aan ka fogeyn degmada ayaa u jeestay dhanka Ceelbuur sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa wax ka yar 30 kiiloomitir ayaan haatan u jirnaa degmada waxaana macquul ah saacadaha soo aadan inaan halkaas warbaahinta kala soo hadalno ay yiri mid kamid ah saraakiisha ciidamadan hogaaminaysa waxaa jira deegaano dhowr oo ka baxeen kooxaha argagixisada kuwaas oo muhiim u ah difaaca degmada Ceelbuur iyaga ayaa haatan aan ku dhownahay sidoo kalena warbaahinta ayaan la soo wadaagi doonaa xogaha halkaas ka jira ayuu yiri sargaalkaasi haatan 30 kiiloomitir u maleemayo inay noo jirto degmada Ceelbuur ayuu hadalkiisa ku daray argagixisada shidaal la'aan baahsan ayaa ku dhacday raashin ma haystaan dhibaatada ayuu adkaysan waayeen waxayna bilaabeen in ka baxaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka haatan iyagu uma babac dhigi karaan oo waxay ku qasban yihiin in ka baxaan halkii aan ku jihaysanaba ayuu yiri sargaalkaasi ciidamadan waxay isugu jiraan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab gorgor iyo qaybo kamid ah militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad waxaana uu helinaya qaybo kamid ah xooga deegaanka oo kaalin muhiim ka qaadanaya howlgaladan waxay haatan howlgalo ka sameeyeen tan iyo saacadii ugu dambeysay deegaano Ceelbuur hoostaga oo horey ciidanku ila wareegeen sidoo kalena waxaa la soo warinaya in kooxda argagixisada ee Shabaab ay ka baxday deegaano muhiim u ah difaaca degmada istiraatiijiga ah ee Ceelbuur waxaa kamid ah deegaanka lagu magacaabo Budbud halka oo la sheegay in argagixisada Shabaab ay isaga baxeen isla markaana ciidanku haatan ay doonayaan inay gudaha u galaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ayaa wada howlgalo lagu baarayo deegaanada ay ka baxeen kooxaha argagixisada kahor intaysan ciidanku gudaha u galin maadaama miinooyin iyo walxaha qarxay goobta ku xireen waxay ka tageen gawaari kadib markii ay ka shidaal beedeen sidoo kalena gawaaridaas waxay ku xireen qaraxyo si ay ugu naafayaan cid waliba oo dul timaada balse ciidanka danab ayaa ku guuleystay in qaraxyada ka furaan gawaaridaasi gacantan ay ku dhigaan ilaa iyo 5 gaadiidka dagaalka ayaa laga soo helay deegaanada miyiga ah oo kooxaha argagixisada ay kaga tageen kadib markii shidaal la'aan baabuurtaasi ay la dhaqaaqi waayeen sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada gobolka Galgaduud howlgallada ayaa maanta sii xoogaysanaya ciidankan waxay sheegeen in Ceelbuur ay macquul tahay saacadaha soo aadan in gacantooda ay soo gasho maadaama kooxaha argagixisada ay baneeyeen deegaanadii laga difaaci lahaa degmadan ay ku qasban yihiin inay xitaa Ceelbuur isaga baxaan saacado gudahood sida saraakiisha dhanka ammaanku ay sheegayaan dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh ayaa lagu wadaa in Ceelbuur qudheeda ay ka mid noqoto degmooyin booqasho ku tagay maalmo kadib marka uu yimaado deegaanada dawlad goboleedka isagoo socdaal ku mari doona dhammaan degmooyinka iyo deegaanada lagu xiriyay kooxda argagixisada ee Shabaab kani oo wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah argagixisada Galmudugna waxay qaadanaysaa kaalinta ugu muhiimsan inaan xoreyno deegaanada waajibna saaran waana amar madaxweynaha jamhuuriyadda ka yimid ayuu yiri sargaal kamid ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab oo kaalin muhiim ah ka qaadanaya howlgallada haatan ka soconaya deegaanada gobolka Galgaduud dhanka gobolka Mudug waxaa la soo warinayaa in maanta uu ka socdo dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidanku ay ka wadaan gaar ahaan daraawiishta iyagoo ku sii shaqeeya dhanka jiidaha ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada ah Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaano aan badnayn oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ay isaga baxeen lamana oga ujeedka rasmiga ah ee kooxaha argagixisada ah maadaama ay baneeyeen deegaano aad u fara badan oo labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ka tirsan kadib markii ciidanka huwanta ay bilaabeen dhaqdhaqaaq xooggan balse saraakiishu waxay ku macnaayeen in kooxaha argagixisada haatan yihiin kuwa aad u taag daran ayna ku qasban yihiin inay baneeyaan deegaanada dhanka jiida ah iyagoo mar waliba gadaal u sii kanaya waxaa jira saraakiil badan oo isku dayeen soo dhiibaan oo ka tirsan kooxaha argagixisada ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya ee iyagu howlgalka wax ka wada